Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijka Riyadaada Garo. Fasalka riyooyinka asxaabta Allah ka raali noqdee. Qofkii arka mid ka mid ah ama iyagoo wada jira oo nool riyadiisu waxay sheegaysaa diin wanaagiisa isaga iyo reerkiisa. Waxay kaloo tusinaysaa inuu gaadhayo sharaf iyo wanaag. Haddiise uu arko mid ka mid ah, wuxuu noqdaa oo gaadhaya dhibaatooyin, wuxuu heli doonaa guulo. Hadduuse arko gooro kala duwan, waxaa u dhowda noloshiisa. Haddii uu arko Abuubakar oo nool Allah ka raali noqdee, waxaa lagu maamuusaa turid iyo naxariis uu u leeyahay addoomaha Alle. Hadduuse arko Cumar, waxaa lagu maamuusaa diin wanaag, hadal caddaan iyo la socod wanaag waxa uu maamulayo. Haddiise uu arko Cismaan Allah ka raali noqdee, waxaa la siiyaa xishood iyo haybad, waxaana bata dadka xaasidka ku ah. Haddii uu arko Cali bin Abi Taalibna isagoo nool, waxaa qofka lagu sharfaa cilmi oo waxaa la siiyaa geesinimo iyo Alle u go'id. Qofkii arka ama ku riyooda qaar ka mid ah dadkii wanaagsanaa ee dhintay, waxaa hagaaga magaaladaasna dadkeedu waxay gaadhaan barwaaqo. Waana cadaalad falaa guddoomiyaheedu, waxaana hagaagtaa arrinta madaxdeeda. Waxaa la sheegay in Xasan al-Basri Allah u naxariistee uu gashanaa dhar suuf ka samaysan, dhexduna tahay kastiij laguhuna qayd, uuna dusha ka wato iskashi u eeg malab oo uu ku taagan yahay qashin, gacantana uu ku haysto shareero isku garaacayo, uuna ku tiirsan yahay Kacbada. Waxaa looga sheekeeyey riyada Ibnu Siriin, markaasuu yidhi dhudhummada uu suufka ku sitaay waa Alla u banbixiisa, kastiijkuna waa diin badnaantiisa, midabka u eeg malabkuna waa jeclaantiisa qur'aanka iyo u macnayntiisa dadka, qaydkuna waa ku sugnaanta iyo warac ahaantii, ku taagnida qashinkuna waa adduunyada oo Alla dhigay lugihiisa hoosteeda, tumidda duraabkuna waa xigmaddiisa ku faafisa dadka dhexdiisa, ku tiirsanaanta uu Kacbada ku tiirsan yahayna waa dhowayn Alle